munaasabad ballaaran oo shahaadooyin lagu guddoonsiinayo guddoonka wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaag iyo maamulka iyo macallimiinta dugsiga hoose dhexe ee Daalo ee magaalada Ceergabo ayaa lagu qabtay fagaaraha barxadda dugsigaasi. munaasabadan ay soo qaban qaabiyeen ardayda fasalada 8aad ee dugsiga hoose dhexe ee Daalo ayaa waxa ka soo qayb galay guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaag, xildhibaano ka socday golaha deegaanka degmada Ceergabo, maamulihii hore ee dugsiga Daalo, waalidiin, maamulka, macallimiinta iyo ardayda dugsigaasi iyo marti sharafaad u tiro badan. waxaana ugu horreynba munaasabadaasi ka hadlay maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Daalo Jaamac Cali Cabdi oo faahfaahin ka bixiyay taariikhda sooyaalka waxbarasho ee dugsiga Daalo oo uu ku sifeeyay in dugsigan yahay kii ugu horeeyay ee laga hirgeliyay magaalada Ceergabo, isagoo xuseyna in tirada sanadkan fasalada 8aad ka qalin jabinaysa dugsigan ay dhan yihiin 135 arday oo noqonaya buu yiri difcaddii 15aad ee dhamaysata waxbarashada fasalada 8aad ee dugsiga hoose dhexe ee Daalo tan iyo intii Soomaaliland ay xorriyadeeda la soo noqotay. maamulihii hore ee dugsiga hoose dhexe ee Daalo Cumar Axmed Warsame oo isaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa ka marakacay sida dugsigan uu hormoodka ugu yahay dhinaca waxbarashada dugsiyada gobolka Sanaag, isagoo ardayda fasalada 8aad ee sanadkan dhamaysanaysana ugu duceeyay in guulo wax ku ool ay ka soo hooyaan natiijada imtixaanka shahaadiga ee ay u fadhiisan doonaan. waxa iyaguna munaasabadaasi ka hadlay xildhibaan Cabdilaahi Nuur iyo xildhibaan Maxamed Axmed Jaamac iyo madaxa waaxda qorsheynta ee wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaag Xuseen Xasan Cabdulle oo dhammaantoodba ku dheeraaday sumcadda iyo taariikhda waxbarasho ee dugsigan ku suntan yahay, iyagoo halkaasna si mug leh ugu bogaadiyay guddoonka wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaag. waxa iyaguna munaasabadaasi ku soo bandhigay khudbado iyo suugaan ka tarjumaysa heerka aqoontooda waxbarasho qaar ka mid ah ardayda fasalada 8aad ee munaasabadaasi soo qaban qaabiyay, iyagoo ardayduna halkaasi si weyn ugu mahad celiyay wasaaradda waxbarashada, macallimiintooda iyo waalidiintoodaba. gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaag Anin Saalax Xaaji Xasan oo gabagabadii munaasabada isaguna ka hadlay ayaa isaguna dhinaciisa uga tusaaleeyay ardayda dugsigeena inay yihiin mustaqbalka madaxda dalka ee berito, taasna ay ku gaari karaan karti iyo dadaal dheeraad oo ay la yimaadaan, isagoo gudoomiyuhu ardayda xusuusiyay fursadda nasiibka waxbarasho ay ku heleen deegaankooda iyo sida waqtiyadii hore cilmiga iyo waxbarashada loogu doonan jiray deegaanada durdurugsan. intaa kadibna waxaa ardayda fasalada 8aad ee dugsiga hoose dhexe ee Daalo ay halkaasi shahaadooyin ku maamuseen guddoonka wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaag, maamulihii hore ee dugsigaasi iyo maamulka iyo macallimiinta dugsiga hoose dhexe ee Daalo. dugsiga hoose dhexe ee Daalo ayaa noqonaya dugsigii ugu horeeyay ee laga furo magaalada Ceergabo sanadihii kontomeeyadii, iyadoo muddadaas dheerna ay si isdaba joog uga baxayeen dugsigaasi arday kumanaan gaadhaya oo magac iyo maamuusba ku leh dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. waa Maxamuud Maxamed Xasan Saraaf, TV qaranka Soomaaliland, Ceergabo.